السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء فتح حسين وإذا لم يلقى استأجرتين معلم ونعكسين يوتيوب كأداون يسين وفتحين أو فشيال أو كله معلم فرحة بدن أما قروح بدن أما الجو الدكن أيام فلا أنا كو وبرستين وكو قبل عصتين. إن عافمتك وشيء مهم إن عافمت قبتينا فيليا أنا جسوا عافمت قبل دين عافمت في سن الله سبحانه وتعالى يا عافمت غير قبل أسرع عنه إذا ودي. أوكي. horta waa idin salaamaya salaanta ayna badan waxa idinku salaamaya salaan idinka timid walaashiin gabadhiina ma fahanteen ama hooyadiina sax mar hadda hooyo qof yar u tahay qof weyn oo noqon kartay sax okay maanta barnaamijna aan soo fariistay inta soo duu barnaamijka inta maanta soo fariistay waxay tahay aan maanta rabeyna aan kaga sheekeeyo horta waa sheekooyin waa wax badan oo la isku dhex dadari doono waa wax aniga aragtideyda aha ka hadli doono okay waxa aragtideyda horta ko waxa ugu horeyso maxaa sababay ayaan dhahayaa okay sorry maxaa sababay ayaan leeyahay in gabdho baasaboorro wata intay Afrika imaadaan ay guursadaan wiilasha Afrika jooga okay haddii ay saas dhacday maxaa nagu kala bedeli waayo oo nimanka baasaboorrada wataan ay u guursan waayeen gabdhaha halkaan jooga sax haddii ay dhacday in ay wiilasha xagga looga imaado yaa u maqan gabdhaha halkaan joogo yaa guursanaya macnaha u fahanteen because wiilashoodii ee soo barbaarsadeen ee isla soo shukaansi bilaabeen ee isla soo nolosha isla soo bilaabeen kala bar hadda ma dhihi karno wiil kasta oo naa guursaday kow xiriirkiisa wuxuu ka bilaabay dad dibadda ku maqan ma fahanteen qasab wuxuu ka bilaabay dad Afrika joogo gabar ay isku xaafad degan yihiin ama isku meel ay ku koreen ama isku iskuul ay soo akhristeen haddii ay dhacday marka gabadhaas in laga kaxeystay ninkii oo ninkiina fiiriyay baasaboor oo fiiriyay dan okay oo noqday qof danayste maxaa marka gabadhaasi ay mudan tahay nin dibadda ma uga imaan karaa marka ayada ya nin dibadda ma uga imaan karaa hadduu uga imaado waxaa dhacdo badanaa inay gabdho dibadda hal mataqaana ama dhowr laga guursado muhiimadda meesha taal marka waxay noqonaysaa gabadhaas hebel la socon jirtay lacag ay ka raacday dibadday ka raacdaa lagu dhahaa oo maxaa nimanka marka dibadda u raaci waayeen wayba ka raaceen nimanka tooda maxaa loo arkaynin taas waa qodob waa su'aal ani maskaxdayda ay soo weydiiyay because waxaa dhacda haddii gabar ay guursato iyadoo wiil xiriir la leh oo waliba xiriir fiican laga yaabo inay salaxeen haddii guursato nin dibadda ka imaaday hadda waxaa lahaa gabadhaas oo guriyay raacday ama waxay noqotay qof danayste ama way ku danaysanaysaa ama way ku meel gaaraysay haddii marka ay dhacday nimanka inay ayagana markooda loo imaado ay fiiriyaan sharci ay fiiriyaan lacag iyo ama meeshaas lagu geeyaa waxay ku dhacday dad badan fanaaniin ku dhacday khadra saliimay ku dhacday waxaa looga imaaday ninkeeda mursal wuxuu ka guursaday hodan cabdiraxmaan taas waxaan dhihi karnaa waxaa waa interest waxa meeshaas ku jiro waa interest wiilal badan oo kale oo TikTok ku jira ayagana waxay guursadeen gabdho dibadda ka imaado oo baasaboor haystaan taasna waa interest marka gabadha haddii ay guursato nin dibadda ka imaaday maxaa loo saaraa targetka maxaa loo dhahaa heblaaya nin dibadda ka imaaday guursatay jaceylkeeda way ka tagtay way danaysanaysa kan noqotay lacag ay fiirsay baasaboor ay fiirsay maxaa gabdhaha qalad ka saaray okay taas waa qodobka labaad wuxuu yahay haddii gabar islaam weyn ee guursato wiil yar maxaa loo buubuuniyaa maxaa loo dhahaa cunugka yar ee guursatay ninka yar ee guursatay heblaayo mataqaanaa cunug yaris waa wasakheer wasakhoor joojisay cunugaan ma u khalmo na orodoo nin kule ee raadso na orodoo nin kule ee guurso waxaa xishoonaynin waxaa dhacda marka in niman 70 sano 80 sano jiraan sawiradoodana aan kusoo bandhigi doono videogan ay guursadaan ilmo yaryar oo gabdho yaryar oo aan teenage oo yaryar ay 14 sano 13 sano ah inay guursadaan ayagoo waliba dibad ka imaanin ma fahanteen oo meelna ka imaanin inay guursadaan aroos kala kacsan loo dhigo lagu amaano waxaa facebookida ku aragnay gabar weyn oo aniga ila eg camal soo hambalyeynayso aabahay hambaliyo aabaha ayuu guursaday marka cunug ayada ka yar ay dhali karta camal uu guursaday marka maxaa ceeb ka dhigay marka ay guursato gabadha nin yar in ceeb laga dhigo oo la dhaho waxay guursatay wiil yar markii ninka odayga uu guursado naag ama gabar yarna loogu hambaliyeeyo
taasna waa mid aniga madaxayga ka weynaatay oon u arkay inay tahay dambi lagu haayo dumarka. Okay, islaanta haddii ay dhalayso iyo haddii ay dhalaynin waxay guursan kartaa ninka dooqeeda uu ka helo. haddii garoob tahay iyo hadday gabar tahay waxay guursan kartaa. hadday weyn tahay waxay guursan kartaa wiil 25 sano 30 sano jiro. hadday rabto ayada 40 ha jirto. Okay, asaa ku raacay indhaha malaha. marka waxaa dhacday ilmaha yararka weli indhahay la yihiin gabadha marka yar tahay indhahay la-ada. Okay, gabar yariis nin yar nin weyn guursanaya wuu soo doonaya. Okay, ciddooda ayaa lacag ka jeclaatay sax mise ma tahay mise ma ahan. ciddooda lacag ka jeclaatay, reerkaas lacagaa la siiyey, programkaas dhan lacaguu ku imaaday. gabadhi waa la khasbay, waxaa la ilaa farduco iyo farxabaare labadaas kala qaado. ma dhihi karto dhexda ku jiraa, ma dhihi karto ajigsa ka maqli jiray labada far laba dhexdooda ku jiraa, labada dhexdooda ku jiraa ma dhihi karto. ma fahantay? marka maxaa ceeb ka dhigay haddii hooyo caruur wadato ee guursato nin aana soo guursanin? maxaa ceeb ka dhigay? maxaa marka wanaag ka dhigay oo qurux ka dhigay gabar yar oo sakhiirad ah oo laga yaabaa inayba nool ayna maskaxdeeda u kala fikirin shukaansi iyo waxaas inay ku fikirin inay guursato nin waayeel ah lagu daro la dhaho duca iyo habaar. hadhow duca iyo habaar markii la dhaho cunug tiirteeda ay cabsato ay istiraada habaarka. Okay, waa wax daran. waxaa laga yaabaa diinta islaamka xataa waxay qabtaa naagta haddii ninka uu ka wen yahay uunan cajabgelinin ayna ka helin inay dhihi karto ma rabi, ama hadday uu guursado lagu daray xataa ay iska furi karto. oo miisaanka sida la rabo saar level la rabaa inuu sinaado. ma fahantay? miisaankaas gabadha iyo wiilku waa inay isu dheeli tirnaadaan. naagtii ninka isguursanaya waa inay laba qof oo isku soo dhawaan kara isku jin ay ahaadaan. haddii taas ka imaado wixii taas dhaafsiisan waa dooq. oo aniga markaa maanta intaan la eekahay ninkaan rabo waa dooqan karaa. laakiin markii aan ahay 13 sano iyo 14 sano waxba ma kala ogeyn, wallahi ma shaqaysan jirin. markaas hadii nin lagu dari lahay noloshaas iskala qabsan lahaa, waa iska kori lahaa, ano ilmo dhali lahaa, ka bacdi maxaa u arki lahaa noloshaas inay tahay nolol iska caadi ah oo dadka dhan ay ku wada nool yihiin, ay ku wada sugan yihiin. marka waxaan leeyahay waxaan u taaganahay inaan u doodo xaqa gabdhaha yararka iyo xaqa dumarka intaba. waxaan leeyahay kawaantooba. waxaan leeyahay gabadha gurigeeda waxa laga soo guursanayo waa hooyo. hooy gabadhaada diid in lagu daro nin waayeel ah ee can uftiisa qaado ayadoo heli karto wiil yar ee nolosha isla keeni karaa. oo dhihi karto aboo kac jikada biyo iga soo shub, aboo kac waxaas halkaa nooga doon, aboo cunuga igu soo jeeday, kac waxaa ii soo qaba ay dhihi karto. laakiin qofka weyn asaaba ku dirsanaaye intuu dho asaaba ku dirsanaaye ii soo qaba weysada. maxaa dhibaatadaas ilmihiin u gelinaysiin? war iska dhaafa. oo noloshaas nolol ka fiican heli karaan gabadhayna lacag waxba ha fiirin in ayadaa lacag idin shaqayn karta. gabadha maskaxda qofka hadaan laga dilin asaa wuxuu noqon karaa qof firfircoon nolol kasta ka bixi kara. ma fahantay? laga yaabaa ayadii wiilkaas yarka ee nolosha isla bilaabeen inay u kala kacdo oo dadkaan iska araga ay noqdaan oo noloshiina dambe ay idinka iina caawiyaan. marka tan waxaa uma sheegto. Okay, tan waxaa uma sheegto yaana lagu bedelin gabdhaha yararka halkaas waa kasoo laabta. waxaan usoo laabana arrinta baasaboorka. haddii aad jeclaysateen gabdhow idinkoo dibadda joogo inaa nimanka Afrika jooga soo guursataan, ka ahee nimanka xagga joogana gabdhaha u keena soo kala bedela. Okay, soo kala bedela. waxaa dhahdaan meeshii nimankii macnaha lahaayo dhan annagaa fiirfiirsano ilaalsanee bal idinkana kaalaya oo halkaa gabdho u raadsada dhaha. inkastoo nimanka dibadda jooga ee laata caleesh ma wada ceyn kariya dhammaantooda haafkood basa uu fiicayo inta kale ee saqarjaa iyo balaayo la sheegaa. ilaaha naga badbaadiyey subxaana wa tacaala. guriga nagan ilaahay ma soo geliyo waxaas wax lamid ah. waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ku daro waxaa kaloo rabaa inaan la aamino Soomaali Maxamed ereyga isfahanka. Okay, isfahanka iyo kalsoonida in la dhiso oona la burburinin oo ilmaha yarka ama qofka weyn intaba aan looga ciyaarin kalsoonida iyo isfahankiisa. haddaa cunugaaga haddaa hooyo tahay cunugaaga la sheekeyso, maskaxda u deji, noloshiisa ka warqab, wax kasteeta ogaaw. haddii aad noqotid inaad hooyo ahayn ood gabar tahayna u dhowow hooyadaada, la sheekeyso hooyadaada, noloshaada dhan hooyadaada la wadaag. waxba kaama halaabi doonaan insha allahu tacaala.
haddii aa wiil dhalinyaro a tahayna sidoo kale waalidkaaga markasta ama qofka kaa weyn oo walaalkaa muhiimada koowaad u celi asaga la tasho wax kasta tara asaga maxaan ku dhahaye maxaan lahaa kala tasho oo mataqaanaa weydi walaal waxaan maxaan ka sameeyaane dadka marka isla tashadaan talada waxba kama halawdo ilaahay subxaana watacaalaana talada la saarto wax ilaahay oo too halaabaya ma jiraan dhamaateen waxaan ilaahay weydiisanaynaa dambi dhaaf iyo dambigeena iyo dambiga waalidkeeba inuu ilaahay dhaafo ceebaha naga uu ilaahay asturo subxaana watacaala bil aadan waxba iskuma asturo ceeb isuma qariyo ceebtanada inuu ilaahay asturo iyo tan waalidkeeba inta aan ku kulmi doono video ku xiga dhammaantii waxaan kaga tagayaa caafimaad bashbash iyo barwaaqo waxaan filayaa inay caafimaad qabtiin idinka iyo awlaadiina iyo reerihiina iyo waalidiintiin dhammaantiin inta dhimatana ilaah subxaana watacaala ha u naxariisto waa walaashii fatixiseen oo idin leh meel kastoo joogtiin wanaaga ay la jeclahay weynahay ha nagu waariyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu